السلام عليكم كلaba aragtaa abcd 1 2 3 waana waa fartuun maalin cusub aragti cusub kusoo dhawo channelkayga maanta videogu wuxuu ku saabsan yahay jab ramadaankan wuxuu marooyaa 3 waxaan rabaa in aan isku dayo waxa TikTok iga soo taageeraysan oo custard chocolate chip pastry so bur labaniyad ku jirto iyo shukulaato noocaas aan waxa ka geli jiray Aldi and halije something twist something cheese my twist custard magacu laha I can't remember 65p 70p waxaas camal ka soo gadi jirnay marka iskoolka aadi jirnay so wax ilmaha ka heli doonaan sabtida axada u sameeysan karto ama casriya ka dhigan karto waa isku baraaweena cause waxa waaye waxa aaminsanahay naag ficig waxay sameeyso yes I can anina waa sameyn karaa marka isku baraaweynaya adeegi mar hore soo gatay marka let's start waxa u baahan tahay icing sugar waa sokor budo kadibna waxa soo gadanaysaa labaniyad waa karsan kartaa hadaa rabtid custard waaye then folia aan soo gatay buff pastry hada naag ron oo aniga fiican tahay fitso and then chocolate chips waa shukulaato yar yar Nutella dadku way isticmaalayaan laakiin waa adag tahay wax qoyaan ugu shubeysaa then foliadii aan fitsaday saan dhag igama qasno and then baaquli soo qaadanaya labaniyadii half ku shubtay waxa dhan ma wada isticmaalayo because uu badan yahay box weyn soo gaday labaniyadii marka waxa ku kor shubi doontaa burkaagii fitsanaa meel kasta mari nacaato meeso alaabtan waxa u sameeysan kartaa marti markay ku imaato oo kedis ay kugu imaadaan dhadhada waxa la gaarisana gabdhaan qatarsanaa oh my god Allah laakiin waxa korka iska warmarisay anyways nacaato meeso labaniyada everywhere marinaysa laba box waxa soo gatay shukulaato laakiin hal xabo bisa isticmaalay shukulaatada meel kasta ku daadsanaysa Nutella dad isticmaalaysan sheeg waa arki laakiin dhib ay noqoneen tana ku fudud ama shukulaato waa weyn camal iska saar you know like Snickers waa isticmaal kartaa KitKat whatever you want kuwan gees kasta ku sameeyay and then waa isku soo laabi doona hada geesii dhan ma ka tagin marka isku soo laabtid ala cududeeda sometimes lug ay u egtahay anyways mindiya soo qaadanaysaa waa kala qaybinaysaa so abaayada waxay u noqotay 8 qadcood so waa arkayna 8 inay noqon karto 1 2 xisaab isku fiicnay ila tiriya waxba ku arkay hope inay tin ahayn 3 dhaqsahay fartuun umar 3 4 5 uma maleemay 8 inay gaarayso 5 waa tirinoyaa sidaas ugu ina xisaabta isku fiicneen 7 hada baardiishka waxa marsanayaa butter yar ama subag ama ghee waxa adiga haysatid sidii hadhoodi kaaga dhigdhigeen oo easily kaaga soo fuqmaan and then butterki marka mariyay fartuunay dhaqsahay abaayo maxaa aad maanta gacantaada culusa gacan weyni gacan culusa isku darsatay astaghfirullah inta dadku ku caayna adadaas aysin muxuu qofka caayna copy mechanism way anyways saana isku duuba laba mar isku toos gareynaysaa saasa ka dhiganaysaa soo waa qabane ajiinki iyo wixii dhac mar that's it saasi ku dhamaatay marka waa sintay laba baardiisho uu noqdo mid 4 iyo mid 3 and then aragtida saana u ekaanaysaa waa ka saa dhidhiin furuq waa ka saa and then hal xabo ukuna korka ka sii mariyay option waa sameey kartaa oo iska daa kartaa laakiin ukunta xoogaa way guduudinay ma fahamtay and then ovenka waxa galiye for 30 minutes saana ku soo baxay nam qurux dhanaan macaan you know it looks beautiful in it kan kale tan waa kaasa kan xoogaa uu kala fuqsiyaan kan kale xoogaa uu isku dhagay laakiin mindiya ku kala fuji doona marka waa kaasa isku talagaray adios waxa la gaaray jab kala sheegi jiray jabku waxa waaye qof wuxuu ku dhacay qof wax ku dhaceen abay fish and chips askarigo saa aan taane jab waxa qof wax ku dhacay oo ka kabsaday waxay noqon kartaa jab yar jab dhaxaad jab weyn comment ku soo qora wuxuu ku leeyahay qofkan soo bixisuk gabadhaan waxa u bixinaynaa Faadimo Dheeri u bixinaynaa Faadimo Dheeri waxay tiri wiilka isla socono markasta wuxuu igu dhahaa waa kugu faanaa asxaabteed marka la joogo wanaagaaga baan ka sheekeeyaa waxa iraahdaa she is my dream girl maalin maalmaha kamid aroosan waxaan ku arkay gabar asaga ay saaxiibo yihiin oo mar hore masuulkeeda i tusay gabadhii hoosi korbe iga fiirisay kadib hoose waxay u tiri ayadii asxaabteeda waxaan buu rabaa in uu guursado
levelkiisa maba garanayaba anoo maqlaayo waa ka qashwacay waxaa rabay in aan iska socdo oo si wanaagsan micnaha aan u socdo ay aragto socodkayga jismigayga iyo jirkaygaba inay qurxoon yihiin socodkii markaan bilaabay labada lugood baa isdhaafiyay meeshii aan ku kufay ayadii asxaabteedana way igu qosleen jabki isoo gaar waxay tahay anoo li aflagaadeeyay aan waxaan ku sii darsaday in aan kufay waa dhacdaa laakiin saaxiibtaas way sas ugu daysay why أنا إسفيل تاقوا أمانة because ناقص ممكن تراضو وأي هرد ممكن يراجع عن تايق سهرس because وحق أسكرتني إني حرين because عند 18 ممكن تعرف هذا بدي كذا مركز سوي هذا لكني قعدت واجوجي لكن هذا الكيجن وكل لي هاي هذا الكل نعكسي لا حدي لا وآخر سنة هاي because أديك أصحيبة لت هاي ولنا مقربة ما لك استهور تاجن تاي وأنا الوقعة واي I am his dream girl أنا مهروف لها or something marka waa iga fiican tahay ina istiray aqligaaga ma xumeeyna hadii suggestay laakiin jabaa ka raacay ani waxa dhila kan amal medium because waxa laga yaabaa hadda naagtaas inay maaragtay dad badan u sheegtay maaragtay xumaatada faafinayso soo qofkaas waxa dhilaha saaxiibka u sheeg wixii dhacay ayadana saaxiibtinimada kaarka laga qaado because adee friend rasmi ay tahay waxaas ma ku dhaqaaqi lahayn gacmo furan iyo qalbi furan ay kugu soo dhaweey lahayd soo waxay u eg tahay naag ninkaaga damacsan inaad tahay soo intay goorgoor tahay gunadkaas gooy intuun ubax nagu noqonin dhuf si adi haddaa ahaa lahayd maxaa sameyn lahayd horta ani waa jajaf lahaa waana sii bixi lahaa xalfadan kusii noqon lahayn ayadana baalaha ka rifi lahaa asaa u isticmaali lahaa xiriirka dhan in uu gooyo comment kusoo qora jab weyn miyaa jab dhexaad miyaa ama jab yar waaye ani waxaan isdhooyaa medium waaye waana kasoo kabsan kartaa hope inaad kasoo kabsato weli xiriirkaaga aa wado taasna eena saaxiib ninkaaga eena la ahayn thank you naagta 9 bilood aa lagu dhalay anina 9 bilood aa lagu dhalay naag ficiya waxay samaysaa ha ka yaabinba inaa aniga isku dayi waayo only problem waxaa waaye waa la kala gacan macaan yahay waa arki doonaa aragtida horta waa wow laakiin wixii waxa u mudaa in isku xoogaha dhageen naagta kili ay u ahaayeen but still aragtida waxa siinayna 9 out of 10 yeah like the big waa keenay you see just like that faraxsanahay in aan ku guuleystay inay ay kala fuqaan waa dhadhaminayna geedkan badanaa markaan yaraa waxaa ka gedi jiray aldiga I think 65p aa la gedi jiray waa chocolate chip custard pastry or something like that midda ogaa comment waxa ku qoray bismillah ma dhihin niida ka dhahay anyways this is 10 out of 10 caruur hadaa leedahay I think they will really like this is amazing 10 out of 10 macaanka saaid muu badno qaleel ma aha but crispy at the same time like hoos uu ka qoyan yahay korna xoogaa qaleel uu ka yahay so it's like the best of both worlds look at that you see like kor uu ka qoyan yahay and then gudaha crispy uu ka yahay so it's like qoyaankii iyo qaleelka waa isla helo saaqjacda you know so caruur hadaa haysatid I think they will like this tala horta hal waxa rabaa inaan dhoo iso duceeyo for me to be a mother horta inta hooyo noqon ninkiina hela waay anyway so duceeyo that I become a mother because I feel like hooyo waxaa noqon doonaa top class because waxaan amlaamay u karnaano it's iconic 10 out of 10 hadaa isku daysid isoo taagaray comment usoo qor meel kasta isoo taagaray daawasho wacan this is amazing